Maamulka Hargeysa ee Muuse Biixi waxaan leeyahay inta aan dhibaato dhicin oo aan la isku dilin iskaga baxa awdal. Qiyaasna wuxuu ka soo baxay garaadka guud ee Khaatumo SSC Garaad Jaamac Garaad Cali kaas oo maanta ku dhawaaqay ereygaas uguna baaqay xukuumadda Muuse Biixi iyo Hargeysa inuu markaa ayada ay iskaga baxaan awdal. Laakiin haddii iskaga bixi waayaan waxaa soo gaari doonta jab weyn iyo burbur ay u horseedaan Somaliland guud ahaan. La soconaba Garaad Jaamac waa garaadyaasha garaad ka mid ah oo markaa ayada ahna la dagaalamayeen markaa ay Somaliland guud ahaan Muuse Biixi iyo xukuumaddiisii kana soo horjoodeen dhibaatada iyo dhibka lagu hayay 9 bilood ka hor. SSC Khaatumo asagana garaadku u yahay Muuse Biixi markaa ayada madax u ahaa oo hadda ay ka guuleysteen oo ay ugu guuleysteen xoogii Shancad soo guusha ugu weyneyd ay ka gaareen 25tii bishii 8aad taas oo ku hasuuqeen ay ku burburiyeen guud ahaan ciidankii iyo hubkii Muuse Biixi uu ku hayay Loosacaanood iyo uuna ku gamaaday ummadii SSC Khaatumo oo ka soo horjoodeen xukuumaddiisii dambeena guusha ugu weyneyd ay ka gaareen haddana loogu magacaabay madax bannaani iyo gobol dhinac u istaagay iska dhigeen maantana ay la mid yihiin Somaliland. Kala awdal ayada lafteeda tabanaysa waxyaalo badan dhib kale oo markaa ayada ka tabanaysa xukuumadda Muuse Biixi xukuumaddiisii ayaa markaa ayada sheegteen inay ayka laftooda gooni u istaaga isku diyaarinayaan maamuladoodana markaa ayada isku diyaarinayaan inay gaar uga baxaan taasoo Muuse Biixi uu ka soo horjoodo uuna ogoleen marnaba uu sheegayo inuu ogoleen oo haddaba uu u diray wafdi uu xogeenkiisu uu madax u yahay kaasoo inuu dhexdhexaadiyo arrintaas ugu talagalay. Laakiin sida u muuqato waa dad horay u tashado haddaba meesha ay taagan yihiin inay meel fog tahay oo meeshii 9 bilood ka hor SSC Khaatumo ay taagneyd inay maantana awdal taagan tahay oo wax kasta oo dhacana la soo celin kara ay u muuqataa. Garaadkaas oo asaga laftiisa xubin weyn ka haystay oo dagaal badanna ku galay SSC Khaatumo darteedna waxyaalo badan iyo dhibaato badan ay ka soo gaartay laakiin ugu dambeyn uu ka guuleystay xukuumaddii Muuse Biixi haddana madax bannaanidii SSC Khaatumo uu gacan midigta ku haysto taasoo loo magacaabay loona fasaxay oo madaxweyne Xasan Sheekhne uu qalinka ugu duugay uuna ku magacaabay inay SSC Khaatumo maamul ayada lafteeda goonideeda u taagan ay tahay kabtigaasna ay kala xiran tahay xukuumadda madaxweynaha Xasan Sheekh iyo Muqdisho taasoo guusha ugu weyneyd ay ka gaareen ayaa Muuse Biixi ilaa hadda uu aqbalin laakiin inuu aqbalana way ku qasban yahay maadaama dowladdii ay dhinac ka wada martay iyo qaas ahaan mise gaar ahaan inaan dhehe SSC Khaatumo iyo dhammaan Soomaaliya taasoo maanta uu ku yahay inuu ciil badan iyo markaa ayada dhib badan uu ku qabo uuna tun badan iyo ciil badantii uu intuu u qabay 30 sano ka hor ayna sheeganayeen inay Soomaaliya ay xasuuqday Somaliland ilaa haddana weli la daba taagan yahay iyuu sheegtay. Laakiin sida hadda u muuqato inay soo noqon karin ayay u taalaa masana ay u eg tahay SSC Khaatumo taasoo haddaba isku diyaarinayso dowladdeedii sidai ay markaa ayada u maareysan lahayd ayna gooni u istaageedii oo uga mira dhalin lahayd oo markaa ayada dowladdeedii iyo sidii ugu dambeyntii ay guushoodii ku gaareen ee uga wadan lahayn meesha ayada ah. Inkastoo Muuse Biixi hadda laga rajeynayo sidii wararka nagu soo gaarayaan ay tahay inuu colka ugu weynaa mise dagaalka ugu weynaa uu ka qaadi doono og ciidankiisa oo meesha uu ku guray muddo 2 bilood ayaa hadda la filayaa inay sixi doono uuna amarka ugu dambeeyay uu siin doono ay u soo qabsan lahaayeen xuduudka markaa ayada uu sheegtay maadaama uu sheegay xuduudkiisii oo Ingiriiska iyo Talyaanka uu weli ay markaa ayada ah garooba ay tahay laakiin hadda sidee u taalo inay maamul meesha uu ka soo curtay ayuu u egyahay. Garaadkaas oo maanta arrintaas ka sheegay ayaa markaa ayada ugu baaqay Muuse Biixi iyo Hargeysa inay ka baxaan awdal sidii uga bixi waayeen SSC Khaatumo 9 bilood la soo dhaafay ugu dambeyn ceebta iyo dhibka iyo farxadda weyn uu soo istaajiyeen ayagoo maamul yar ah dad yar markaa ay iska soo urursadeen ay ka guuleysteen Muuse Biixi iyo ciidankiisa iyo hubkiisina haddaba gacantooda ku jiro haddii arrintaas ay haddana mar labaad qalad labaad uu galo wuxuu ku sheegay garaadkaas oo maanta hadlay wuxuu sheegay inuu markaa uu ceebta ugu weyneyd ay ka soo gaari doonto burburka ugu weynaane Somaliland ee meesha ka soo gaari doonto taasoo ugu baaqay haddii uu arrintaas uu aqli u maleynayo masane uu raba Somaliland istaageedii iyo markaa ayada inay weli sii jirto waa inuu iskaga baxa masana u fasaxa awdal oo uu dagaal hor leh masana burbur hor leh ayadana uu u horseedin hadduu arrintaa ku dhaqaaqane inay asaga burbur iyo dhibaato badan
uu soo gaaray ayuu sheegay. Waalaikum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu.